qofkii salaada hawinta oo daciifsada oo sidii loogu talagalay aan ula imaanin asagana 15 ciqaabood ayaa lagu ciqaabaa 5 adduunka lagula ciqaabaa 3 waa marka uu dhimanayo 3 qabriga ayaa dhexdiisa lagula ciqaabaa 3na marka uu qubuuraha ka soo baxayo adduunka 5 waxyaabood oo lagula ciqaabayo midda koobaad barakada ayaa cimrigiisa laga tirtiraa axadku taariku salaadka dadka kula mid ma aha sharaf uu leeyahay malaha ciriiri iyo rafaad ayuu ku jiraa tafash iyo dhib ayuu sheegaa habeen iyo maalin taariku salaadka lacanad allah ku soo degta habeen iyo maalin sidaa darteed ayaa barakada waxaa laga tirtiraa cimrigiisa jahanabada dhexdeedana dadka ku waaraya oo ku jiro kuwa khasaaray adduunka iyo aakhirada inuu ka mid yahay ayaa allah subxaanahu wa tacaala aayaadkaa noogu caddeeyey waxaa kaloo aayaadkaasuna bareen inuusan diinta walaal nagula ahayn waxay kaloo aayaadkaasuna bareen inuusan dadka muslimiinta agtooda xurmo iyo saraf ku lahayn oo in xoolihiisa la dhaco lana dilaa ay bannaan tahay haddii dawla islaamiya jirto sidaas ayaa allah noo caddeeyey subxaanahu wa tacaala baabu qatli taariki salaa wuxuu baabu yahay taariku salaadka dilkiisa ruuxa salaada ka tegay in la dilayo jamaahiiru ahli ilmi baa qaba in dilkiisu yani wax weeyaan uu yani halaalu dam inuu yahay oo la dilayo ma laga toobad dalbaya waa say u badan yihiin kii la soo qabto oo salaada uu ka tago intaan la dilin salaada tukaa la dhihi hadduu markaa salaada bilaabo dilka waa laga baajinaa fa in taab wa ilaa qutil hadduu diido oo salaadii uu yidhaahdo ma tukanayo soo taago qortaa loo casaynaa marka qofka muslimka ah iyo gaalnimada waxaa u dhexeeya waa salaada haddii meesha ay ka baxdo qofka ha tirsanin waa qof gaal si kasta oo wadaad uu rogrogo oo mas'alo walba meel loo wado culimada isku khilaafeen wax kastoo liiraha qofka ma tirsana waxaan salaada ugu hormaray maxaa yeelay maadaama nabi ilaahay nuux iyo wiilkiisa calaaqadooda ay ku salaysnayd calaaqa caqadiya oo caqiidadii markii la waayay ay kala baxday ba adiga aabaha waxa idin kala goyn kara salaada haddaadan tukanana muslim aadan ahayn aabahay baa sheekh ahaa iyo aw ahaa iyo faqiih ahaa iyo reer ahlu diineed baan ka soo jeedaa iyo Soomaali baan ahaa intoo ma qabanayso maxay la salaada marka laga tago qof tirsan ma Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin marka la weydiiyo ahlu naarka war naarta saqara la leeyahay war maxay idinku guray maxay idin galiyay naarta saqara lam nakum min al-musallin ma inaan tukan jirin idan waxa muuqata qofka haduusan tukan hadii xitaa la yiraahdo ma ya kaafir ma inuu ahlu naar yahay waa muuqata ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka isaga ku sheegay